ma ogtahay samaysmiga lafdhabarta iyo maskaxda ilmaha inay abuuranto ka hor intay hooyada ogaanin inay uur leedahay. taas waxay muhiim u tahay in hooyada ay qaadato uurka ka hor fitamiinska muhiimka u ah folic acid. folic acid wuxuu ka hortagaa inay timaado cilladaha ku imaan karo 4 isbuuc ugu horeyso ilmaha abuuritaankooda, taasoo saameyn weyn ku yeelanayso lafdhabartii iyo maskaxda ilmaha. haddaba waxaa laga rabaa hooyo walba oo qorsheynaysa inay uur yeelato inay isticmaasho prenatal vitamins khaasatan folic acid. haddaba markii cilladahan dhacayo haddii folic acid ku yiraahdo hooyada waxaa ku imaan kara ilmaha abuuritaankooda maskaxda iyo lafdhabartooda cillado sida spina bifida iyo anencephaly iyo waxyaabahaas. cilladahaas waxay imaanayaan gudi hooyada ma ogeyn uur leedahay wama la gaarin xilliga caadadeeda kala way lahayd. sidaas darteed waxaa muhiim ah hooyo walba oo qorsheynaysa inay uur yeelato inay folic acid qaadato uurka ka hor. markay uurkeeda qaadatana waxaa muhiim ah inay sii wado ilaa 3 bil ugu horeyso. 3 bil markay dhaaftana waxaa muhiim ah in dhakhtarkeeda u tagto si loogu bilaabo mar walba vitaminska markaas xaaladaha ay marayso muhiim ku ah. way isbedelayaan waan sababta loogu sameeyo balamaha hooyada uurka leh. mar walba waxaa marayso waxaa u muhiimsan fitamiinada qaar, mar walbana waxaa muhiim ah baaritaanada qaar oo halis ugu jirto, mar walbana ka hortag ayaa ka muhiimsan daaweynta.